soo dhawaada saaxiibayaal sheekaduna maanta waxay qusaysaa hooyo iyo labadeedii gabdhood waqtiyada ka mida waxaa meel tula ku wada noolaa hooyo haysatay 2 gabdhood iyadaiyo labadeeda gabdhood aad bay isugu farxsanaayeen maalinkii gabdhuhu hooyadood ayay caawin jireen oo hawsha guriga ka caawin jireen habeenkii marka la gaarana hooyadood waxay gabdhaha uga sheekan jirtay taariikhaha dadkii hore iyo qisooyin hore aad bay isugu faraxsanaayeen oo noloshooda waxay ahayd mid qurux badan ilaa laga soo gaarayo waqtigii qaboobaha baraf badan oo dhulka ka da'ay jawiguna aad u qaboobaaday habeenada ka mid ah iyagoo sidii caadadooda ahayd hooyadood gabdhihii u sheekeynayso ayaa albaabkoodii si xooga loo soo garaacay hooyadii ayaa waxay ku fikirtay durtaba inay albaabkii furto oo ay xaggiisa u kacdo laakiin waxaa uga horumartay gabadheedii wayna furtay markii albaabkii furtay waxay ku aragtay bahalka dibka loo yaqaano oo albaabka taagan aad bay u argagaxeen oo bahalka dibka waa bahal aad u khatar badan haddii uu kusoo weerarana degdeg kuu cuni kara way naxeen runacaantii hooyadii iyo labadeedii gabdhoodba aad ayay u naxeen laakiin waxaa si lama filaana u hadlay bahalkii dibka isagoo sidii bini'aadamkii u hadlayo kule fadlan waxbaha baqinina anigu waxaan ahay dib idinma cunayo waan idiin soo martiyey waxaan u baahanahay inaad imartigelisaan waxaan dareemayaa qabow fara badan waana gaajaysanahay anigu idinma dhibaataynayo laakiin waxaan doonayaa inaad idin noqdo marti wanaagsan hooyadii iyo gabdhaheedii markii arkeen inuu hadlayo bahalkii kama aysan biqeen way soo dhaweeyeen gurigeedii ayay soo geliyeen labadii gabdhood waxay bilaabeen inay ka jafaan barafkii dhabarkiisa saarnaa hooyadiina waxay usoo diyaarisay cunto halkaas ayay ku saaxiibeen dibkii iyo hooyadii iyo labadeedii gabdhood hooyadii iyo labadeedii gabdhood dibkii waxaa u noqday saaxiib wanaagsan maalin kasta wuxuu sii hadiyeyn jiray hadiyaday ku farxaan waxay socotaba waxaa la gaaray waqtigii uu dhammaanayay xilliga qaboobaha ama jilaalka dhulkii jawigiisuna caadi ayuu kusoo noqday dibkiina wuxuu u sheegay inuu ka tegi doono maadaama xilligii qaboobaha uu dhammaaday iyagoo aad ugu xunug bixitaanka dibka oo ah saaxiib wanaagsan oo ay la qabsadeen ayay iska fasaxeen maalmaha ka mid a gabdhihii iyagoo jooga duurka oo miro ka guranaya ayay waxay maqleen qaylo kadib waxay fiiriyeen meeshii dhawaaqayo qayladu kasoo baxaysay waxayna arkeen oday weyn oo gar dheer oo garkiisii uu geed kaga jifo odayga markii u yimaadeen isla markiiba wuxuu ka codsaday inay caawiyaan gabdhihii markii u yimaadeen odaygii waxa uu ka codsaday inay caawiyaan oo ay garka geedka uga qaadaan labadii gabdhood waxay isku dayeen inay geed kor u qaadaan laakiin way awoodi waayeen ugu dambeyn fikrad ayay keeneen ah inay garka ka jaraan intii geedku haystay sidii hadday sameeyaan odayga uma mahad celin aad buu uga xanaaqay isagoo xanaaqsan ayuuna ka dhaqaaqay haddana maalin kale waxay maqleen qaylo waxayna arkeen odaygii oo taagan meel xeeb agteed ah markii kusoo dhawaadeen waxay arkeen xeebta oo uu garka kula jiro islamarkaana uu ka dhaqaaqi la'yahay haddii ay u yimaadeenna waxay arkeen garkiisii dheeraa oo badda gudaheeda ku jira kaasoo kalluun weyn uu qabsaday odaygana kalluunkaasi uu jiidanayo waxay isku dayeen inay odayga soo jiidaan si kalluunka ay uga xoog badiyaan laakiin way awoodi waayeen mar kale ayay garka intii hore ka jareen odaygii isagoo xanaaqsan haddana ayuu ka tegey umana mahad celin gabdhi way la yaabeen markay soo laabteen waxay arkeen wiil dhalinyara oo suuxsan dhagaxa dushiisna saaran wejigiisana dhaawac uu ka muuqdo wiilkii ayay soo qabteen oo ay toosiyeen markii uu wiilkii gabdhihii soo toosiyeen waa uu soo miirsaday waa ula hadlay isagoo shogsan waxay ku dhaheen maxaa kugu dhacay iyo maxaa tahay wuxuu yidhi waxaan ahay anigu boqor aadam waxaan raadanaya walaalkay boqor yuusuf oo iga soo lumay dhowr bilood ka hor oo aan la'aan waayadanba anigoo safarkayga ku guda jiraa ayaa waxaa iga luntay wadadii waxaan arkay nin oday ah oo garcad odaygii haddii aan la hadlina wuxuu igu soo tuuray wax maanso oo kale ah kadibna waxay igaga dhacday wejiga waan wareeray waxaan ka dhacay faraskii oo dhagaxan dushiisa ayaan ku miirbeelay labadii gabdhood waxay wiilka ku dhaheen annaga ayaa ku caawinayna oo kula raadinayna walaalka yuusuf labadii gabdhood iyo wiilkii isla jooga ayay mar kale waxay maqleen qaylo iyase waxaan laba waxa oo iscayrsanaya waxay soo fuleen faraskii ninkii boqorka ahaa waxayna usoo dhaqaaqeen dhinacii ay qaylada ka maqlayeen haddii ay wax yar soo socdeenba waxay arkeen dibkii oo baacsanaya odaygii garka caddaa oo gabdhuhu dhowr mar hore ay caawiyeen isla markiiba markii ay soo gaareen siday u soo ordayeen ayuu odaygii wuxuu u koray geed dibkiina waa hoos istaagay isagoo ahan jabaya oo u dhaaranaya wiilkii boqorka ahaa ee aadam iyo labadii gabdhood waxay kasoo degeen faraskii waxayna u yimaadeen odaygii iyo dib kadib boqorkii yaraa ee aadam markuu xaqiiqsaday ninkii haddaay tumaansada ku dhiftay inuu yahay odaygan garka cad wuu xanaaqay wuxuuna soo qaatay seeftiisii si uu ugu dhifto wuxuu la soo aaday dhinaca odaygii oo geedka saaran odayga markuu yaqiinsaday in seefta isaga loola soo socdo ayuu geedkii kasoo degay wuxuuna dhinac u tuuray boqor aadam sidoo kalena dibkii laad ayuu ku dhiftay oo isla dhinac kale ayuu u tuuray isagoo adeegsanaya awoodiisii ayuu kor isugu qaaday waxa uuna noqday oday xoog weyn oo ka wada dheer dhammaantood kadibna odayga wuxuu weerar kusoo qaaday dhalinyaradii labadii gabdhood markay arkeen dibkii waxay yaqiinsadeen inuu yahay saaxiibkoodii la joogay xilligii jilaalka ama qaboobaha waxaana kusoo dhacday gabdhihii fikrad ah inay garka ka jaraan waayo awoodiisa oo dhan waxa ay saarsan tahay garkiisa oo haddii garkiisa laga jaro awooddaas weyn oo ugu faanayo way baaba'aysaa labadii gabdhood mid ayaa waxay doontay seeftii oo ka dhacday boqor aadam midna waxay doontay maqaskii midii maqaska ayaa soo hormartay kadibna odaygii dhulka ayuu cagta ku dhuftay oo dhulkii inta
gariiray ayay gabadhii kuftay waxaana ka faniinay maqaskii. ugu dambeyn gabadhii kale ayaa waxay usoo tuuraysaa seeftii boqorka. boqor aadam seeftii ayuu gacanta ku qabsanayaa wuxuuna ku dhufanayaa garkii odayga. odaygii markii garkii laga jaro awoodiisii oo dhan way baaba'aysaa waxaana ugu soo dhacayaa dhul. sidoo kale dibkii ayaa si dhaqsiya wuxuu isugu bedelayaa qof waxaanu noqonayaa boqorkii la weysanaa ee yuusuf. halkaas ayay labadii boqor ku midoobayaan oo ay laabtiis gelinayaan. in yar kadibna labadii boqor waxay xiriir usoo bandhiganayaan labadii gabdhood. sidaas ayay ku guursanayaan oo waxay geenayaan gurigii boqortooyada. sheekadina waxay ku dhammaanaysaa boqor yuusuf iyo boqor aadam labadii boqor ee walaalaha ee kala lumay oo 2 boqoradood iyo 2 amiiradood helay oo degay oo dib ugu soo laabto dib ugu midoobay boqortooyadoodii. kusoo dhawow janaalka Sheeko Xariiro waxaad ka heli doontaa sheekooyin badan oo film kartoona aad ku cajimin doona. kusoo dhawow mar labaad. haddii aadan saaxiib hore nala ahay soo dhawow oo taabso subscribe-ka si aad ula socotid sheekooyinka xiisaha leh ee aan soo gelin doono maalmaha soo aadan. mahadsanid.